waftigii ballaarnaa uu hogaaminayay musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi ayaa si mugaya miisaanna lagu soo dhaweeyay degmada Ceelaf Weyn ee gobolkaasi Sanaag waxaana waftigan uu musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye hogaaminayay halkaasi kaga hortagay kumanaan dadweynaha oo shacabka ku dhaqan degmada Ceelaf Weyn iyo waliba salaadiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi Ceelaf Weyn waxaana waftiga loo soo galbiyay gudaha degmada Ceelaf Weyn waxaana waftigan markii ay soo gaadheen gudaha degmada Ceelaf Weyn ay kala hadleen shacabka meel fagaara ugu horreynna waxa halkaas ka hadlay salaadiin boqorro isimo iyo waliba taageerayaal aad u tiro badan si aad u aragto shacbiga reer Ceelaf Weyn dhamaantood bayagoo isku duuban ayay ku soo dhaweynayaan dadweynaha reer Ceelaf Weyn waxay ahaan jireen boqolkiiba 99 xisbiga kulmiye haddana xisbiga kulmiye ayay automatically ugu wareegeen sideedii u yihiin sabiix cabdi haliyayga qaaliga iyo si aad u aragto shacbiga reer Ceelaf Weyn dhamaantood bayagoo gamca furan Ceelaf Weyn afka kamalaha ee waa ka soo bixida iyo taageerada iyo inay codkooda iyo taageeradoodaba siiyo xisbiga kulmiye aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa idinka isa soo abaabulay dareenkiina ku soo baxdeen xisbinimadiina ku soo baxdeen aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan u cadaynayaa kulmiye kuma raacin hanti haybna kuma raacin mabdaba mara muusana diyaar waxaan u laahay aniga iyo ciddii dooratay iyo ciddii aan ku dari karaba inay codka diyaar kula yihiin waynu muujinay dareenkeennii iyo taageeradeennii ilaahay markuu xoolo kula doonayo dadkoodu ku siiyaa warankii iyo gaashaankii iyo codkii caddaani baa meesha maraya oday cali caarif la odhan jiray oo haddii aan laba leeyahay reer jabuuti ahaa waxa aad u taageeri jiray oday ka dhacame la odhan jiray oo anfar subaxa siyaasaddu ay ka jajaban tahay cali caarifna koofiyadda si laalaaban buu u soo gashan jiro iyo dhar jactadan buu soo qaadan jiray subaxay cali caarif isugu toosan tahayna uu soo xaragoon jiray deedna wax la yidhi siyaasadda cali caarif koofiyadda ka dhacamaa laga gartaa siyaasadda habar jecla anuun baa layga eegaa horta inankii geela u heesay geel ninku xada iyo gaalku xidha iyo xarbi mooye inaan xero kale xiis lagaa odhan xilaa lagu furay codkeenu meel weeye xisbigan iskama aynu caashiqiinay dawlad buu ka soo jeedaa iminka talada haysa dawladda uu ka soo jeedaana waxbay noo qabatay oo waxbay dalka ka qabatay oo waxaan la ilaabi karin bay gobolkan ka qabatay abaalgud bay noogu leedahay inaannu codka siino waa dawlad iyo xisbi isku duuban Ceelaf Weyn waa hay'adda gobolka Sanaag Ceelaf Weyn iyo deegaankeedu halka ay miisaanka saaraan waa meel ay la hubo inuu qofkaas soo baxayo geesta kalena waxa iyaguna ka hadlay xubnihii safarka ku weelinayay musharaxa madaxweynaha xisbigaas kulmiye haddii tartankiiba intaan meeshii lagu tartamayay garoonkii si wanaagsan aan kubadda u bilaabmin hadduu qof sii xanaaqo oo xanaaq badani ka sii muuqdo macnaheedu waxa weeye tiimka ciyaaraya u arkayaa wuu sii baqayaa in laga badinayo markaa kulmiye wuu bartay haddii laga badiyo inuu haneeye axsaabta antaasi ay ku cusub tahay waxaanu leenahay tartanku waa adag yahay waana tartan xalaala u diyaargarooba inaynu tartanno gabagabadiina waxaa halkaas isaguna ka hadlay mujaahid muuse biixi cabdi musharaxa xisbiga kulmiye ayaa shacabkaasi ku booriyay inay qaataan kaadhka isdiiwaangelinta sidoo kalena ugu mahad celiyay soo dhaweyntii ballaarneed ay u sameeyeen dadka reer Ceelaf Weyn rag iyo dumar leh ayna soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr taa waa idinka mahadnaqaynaa magaalada waxaa ka jirtay shaqaaqo muddo dheer way socotay waxaanu idinku baaqaynaa oo Soomaaliland oo dhamay magaalada idinka tahay oo ergey idinka tahay oo islaam oo dhamay ergey idinka yahay oo si tulimalaydu ka codsanaya inaad nabadda soo celisaan oo isu dul qaadataan oo wixii dhintay ka samirtaan oo isu samirtaan Axmed Maxamed Cilmi Hoon Cable TV